السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليه قاعدة مeel kasta adduunka ka joogtiin kusoo dhawaada mar kale iyo video cusub insha Allah. hadaa hore nala joogto wala soo dhawo, hadaa nagu cusub tana subscribe noo saar insha Allah. videogan sii share gareyso oo gaar dad badan aan jeclaan lahaa inuu ay videogan ka faa'iidaan insha Allah. videogi casharadeeni guri qurxiska insha Allah kaas waa soo socyaa pause yaraan galnay oo xoogaa yar pause galnay insha Allah. videogan laakiin waxaan rabaa inaan ugu faa'iideeyo abayooyin jecel businesska iyo shaqooyinka ayagoo guriga joogaan oo caruurtooda haystaan, laakiin waxaa jira abaayooyin badan aanan haysanin qarash ay ku bilaabi lahaayeen business ayagoo gurigooda joogaan. waayo business kastoo la bilaabay qarash u baahan yahay soo maahan. anaga weliba hadaa Soomaalina anaga waxaa naqaanaa inaan qarash badan keeno ayuuta aan galno oo qarashkaas aan qaadno aan ku tagno maxay ahayd Shiinaha ama Dubai aan dhar keeno amba dahab keeno amba aan rooga keeno amba waxyaabahaas la gaday la sii gaday aan keeno. laakiin dad badan waxaa jiro walaalahayga qaaliga aanan haysanin lacagtaas haysanin ee ku bilaabi lahayn businesskooda. marka waxaa jiro hadda maalinleed waxaan kasoo sheekeeyay adoo gurigaaga jooga sidee u shaqaysan kartaa. marka taas waxay shaqo iska fudfudud ahayd, laakiin tan hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo insha Allah. aniga ayaan ka shaqeeyay shirkad waxaa jirta oo Swedish ah oo wadanka Sweden laga leeyahay oo laba nin oo walaalo ah oo Swedish ah sameeyay 50 sano ka hor. shirkadda marka 50 sano ayay jirtaa. marka anaga shirkadeenan oo Sweden ku taala waxa kale ku taala wadamo badan oo muslimiin ah sida Morocco ku taala, Egypt ku taala, Masran ka wada waxay ku taala hadoo Ilaahay ku Indonesia ku taala wadan muslim waaye wadan badan ay ku taala. marka walaalahayga qaaliga ah waxa anaga shirkadeena ee gadaa anagana aan gadnaa waxa waaye kareemo kala nooc ah, waxay gadaa barfuun rag iyo dumar ah, waxay gadaa alaabaha qubeyska scrub korka lagu dhaqaayo rag iyo dumar alaabaha productiga rag ee garka marsadaan. waxaan gadnaa hadoo Ilaahay ku reeyay productiga timaha oo sida shaambada nafaqada saliidi oo kala nooc ah oo ayagoo natural ayagoo kuwa kale oo caadi ah. waxaa kaloo gadnaa hadoo Ilaahay ku roon yahay alaabaha qubeyska oo ilmaha make upki kama maqna. marka waxyaabasna gadnaa marka qaxta waxaan keenaa dhaga oo dhaga la xirto kale oo bugta ah oo laakiin alaabaha ay cadaanka xirtaan walaaha Soomaaliyeed xirtaan Dubai la keeno ma ah. alaabaha dadka cadaanka ay xirtaan waaye oo kiyaalaha kuwa samarka ee kuwa oo xilliga barafka ah waxyaabasna keena iyo boorsooyin yar oo la xirto oo garabka la xirto la saarto. boorsooyinka waaweyn ma iskuulkii lagu tago ma buugaagta la gashto ma boorsooyinka riiska xarakada waaye. marka waxyaabasna gadnaa walaalay. marka qaabka u gadnaa qaabka loo gadaa waxa waaye aniga 3 sano ka hor shirkadan kusoo biiristay idin sheegay. marka kusoo biiraan aan shilin ma gelin qarash dhan ma gelin shirkadan. marka waxaa jirto 3 qaab loo shaqeeyaa jirto adii 2 qaab loo shaqeeyaa jirto shirkada. amba waa ina alaabtii sii gadaa amba waa ina dad badan aad shaqada keentaa oo markaas eeti meesha aad ka shaqeysaa dadkii caawisa bartaa qaabka loo shaqeeyo. marka anaga alaabta markaan gadeeno hadoo Ilaahay ku roon yahay waxaa haysataa 15% ilaa 30% oo qiimo dhimis ah haysataa oo markasta xaq u leedahay. waxaa kaloo haysataa waxaa marka lagu xisaabtamayaa buunda lagu xisaabtamayaa halkii shay hal buundo leeyahay. marka buundooyinkaaga hadee badnaato example hadoo buundooyinkaaga ay gaaraan 400 oo buundo hadee gaaraan waxaa lagu soo celinayaa 600 oo lacag ah oo qiimo dhimis lagu soo celinayaa adoo qiimo dhimis 30 oo qiimo dhimis percent oo qiimo dhimis haystay hadal meeshan kale qiimo dhimis kale laga soo celinayaa. markii alaabtii tusaale ahaan markaa rabta alaabta marka intaadan qarashka hadaa gelin hadaa rabta alaabta oodan gaban hadaa rabta waxaa sameyn kartaa. hadda meeshan social media jiro alaab waxa waa dukaan iyo waxaas laga reestaba adoo gurigaaga joogo internetka Facebook amba Snapchat amba Instagram aad galaysaa alaabta productiga markaas jiro aad sawirada gelinaysaa waa laga soo dalbanaa adi markaas aad sii dalbeysaa ma fahantay. waa alaabtan ka rabaa meeqa gadoosa intaas gado hay isi wahay waxa la bay 3 maalin ka bacdi alaabta insha Allah iimaanaysa markaas noo balan alaabta dalbay 3 maalin 4 maalin ka bacdi alaabta iimaanay qofka adreesku ku soo sheegay lacagta boosta soo baxsanayo oo kul xisaabtamaysa alaabta adreeska qofka lacagtii ku soo diraya ma fahantay lacagtii ku soo diraya Swish amba wixii kale oo anaga dadka isticmaal oo kugu soo diraya. marka
si fudud marka insha Allah videoga ay kala go'ay raali ahaada marka waxaan ka wada iisoo sheegay waxaa sameynaysaa productiga markaad dalabtid oo qofku alaabta gurigaaga imaado qofka adresskiisa uu diray lacagta kuu soo diraya marka qarash iskama gelin saas waa sameyn kartaa haddii kale dad soo gelin kartaa markaad soo geliso dadkii marka ay dalbadaan adiga waxaa faa'iido ku ahaanaysa markasto kadibna dadka aad caawinaysaa ilaa qofka inaad soo geliso kaliya qofka ka faa'iideysanaysa laakiin adina qofka u faa'iideyna waa bare qaabka dad loo soo geliya bare qaabka laabta looga baraysaa marka ma sha Allah qof leader waxaan qaysaa ma sha Allah marka labadaas qaab waa loo shaqeeyaa faa'iido badan jirto waxaa jiro inaa helayso qiimo dhimis badan helaysa waayo waxaa laga yaabaa marka dalabka ah heshay haduu ku gaaro 3000 example waa $300 hada oo qiimaha alaabta laga soo dalbado ay noqoto adiga laba dhinac hadaa ka heshay qiimo dhimis ka heshay waxaa laga yaabaa $150 kaliya in alaabta kaaga baxda laga yaabaa soo $150 marka alaabta ku soo gadato oo guriga yimaadid oo dadka ka sii gadaysid dadkii $150 waxaa sii helaysaa 30% oo qiimo dhimis ka sii helaysaa marka waxaa laga yaabaa in ka hesho $200 meesha alaabta marka walaalahayga qaaliga labadaas nooc loo shaqeeyaa marka wax professional dhahaya jiro oo dadka loo soo diray lacag ahaan loogu soo diraayo marka adoo alaabtii gadaayo oo dhinaca alaabta ka gadaayo aad dadna ina keentid dadkii caawisid leader u noqotid barti qaabka loo shaqeynayo ilaa wax fudud waay waxa idin sheegay hadda u sheegay qofkii waan tusay waxa sida loo dalbado marka aan group hada badan aan qabaa oo ma sha Allah 10 gabdhood Soomaali camal aan haysta hadda oo ilaa 10 qof camal waay marka eega caawiya groupkaas la information ku soo diraa wixii su'aal meesha ku soo diraa meeshaan ka caawiya marka ma sha Allah tabaaraka Allah walaahi gurigeygaan jooga cunugeyga haysta sawirada oo productiga markaas oo jiro oo kataloga 3 isbuuc ka bacdi ku soo baxaayo marka maalinta saas u soo baxaan waxaan sameeyaa sawirada soo qaataa sawirada markaan soo qaato aan sawiradii jarjaro aan Snapchat iyo Facebook iyo page aan Facebook leeyahay gashto maalin kasta markuu gelinaa 24 saac ku jira sawirkaas markuu baxo hadana waa gelinaya isla meesha ugu jira wax waqti iga qaadanaa ma cunugay kulka ku haysta marka shaqaan ka shaqeeyaan shaqadii caadiga boqolkiiba 50 shaqeeyaan aniga maadaama ilmoolay inta kale in ilmahayga la joogaan jeclahay boqolkiiba 50 marka soo shaqeeyo shaqadii caadiga joog marka qaar aan sameeyaa بس Snapchat كوا مركز هذا شيء كلا قلت كلا شيء كسته أنا مركز قف برودكتي أنجلي وقف يسوي فيديو ولا على ميقا قد أنت سان كذا هاي هدية أنا وأدري هدية نقول له عندها مركز إيمانها كل صو هذا لا مركز حسك بسيط هو ولا هي قالقة مركز طلب كسكو أروري هالمالنا بحق لابت أندرا مركز حسك فوض واي إن شاء الله تعالى حساس بدل ما أهن هدو إلهي يرى waxaan rajeynayaa inaad fahanteen wixii su'aalaha qabtiin amba hadii aad jeceshahay business kana ka qayb gashid waa free inaad bilowdid waxa waaye hadhow ka bixitaankeeda waa free wax lagu haysto ma lahan ma ahan shirkadaha qaar oo ku dhahayaan alaab sii gado alaabta inaad gadataa saas ma ahan marka ka faa'iideysto wacan dad Soomaalida badan ma naqaano dadka Carabtana u badan iyo Swedishka u badan maadaama ay shirkada Swedish ay tahay marka bilaadan anaga Soomaalidana iska negative badan waxaan ka xishaahay bis kale weyn hab inaan wax gadno horta adduunka hormar waxa lagu gaaray moogta waxa lagu gaaray hormar adduunka ganacsiga lagu gaaray dadka lacagta adduunka ma dad wada business waay marka anaga wixii ayayseena dhaheen waxaan wax ka karnaa waxaan wax ka bixinaa dhaheen hadhoon waxa arkay qofkii shalay oo sas dhahaysa asoo taajir arkaysa oo ma sha Allah meel fiican ka gaaray ganacsiga ma sha Allah marka walaalahayga qaaliga ceerta qaadanaa iyo waxyaabahan waxa ka fiican in adiga ganacsi ay sameeysto qaabka aad lacagaysid ma sha Allah Ilaahay ku barakay lacagtaada ku sameeyso lacagtaada hadii kale tan sidaan kale waa sameyn kartaa ganacsigan fudud oo lacagtan kaaribna sameyn kartaa marka insha Allah waxa rajeeyaa in walaalahayga ka faa'iideysateen wixii su'aalaha qabtiin soo weydiiya waa idin caawinaya insha Allah ta'ala meesha comment igu soo qor wixii su'aalaha qabtii hadii aad rabtid inaad soo xiriirtid wadamaanka caawi kara dadka joogana Soomaaliya kuma jirto Afrika kuma jirto waxa u badan waxa wadamaanka ay joogto anagu baahna waxa waaye Sweden tan Norway waa leedahay Finland waa leedahay hadoo Ilaahay ku roon yahay waxa kale wadamaankan oo maaragtay Yurtam oo gaajada ah oo kale waa laga helayaa Masar Egypt Morocco wadamaankaas ay jirto walaalahayga qaaliga Afrika ma jirto waan ka xumahay Afrika inkastoo ay Kenya ku taal laakiin product ma hore ka imaado 20 sano ka hor jirtay marka qaar la geeyaa
marka wax quality fiican lama ahan marka insha Allah ina fahanteen rajeena wixii warbixin comment igu soo qora video-na share gareysana rajeynaya si dad badan u gaaro insha Allah oo rabaa in ganacsigan ka faa'iideystaan lacag u haysan insha Allah marka waa maasantii walaalay qaaliga. Assalaamu calaykum.